waxa uu kasbaday naanaystii baygii birtaha waxa uu muujiyay ka soocan yahay kuwa dhigiisa ah waxa uu uriyay burahanti ah isagu waa Mike Tyson magacaygu waa Mishal meeshuna waa ilayska dunida hubaal inaad garanaysid feeryahankii caanka ah ee Mike Tyson laakiin ma ogid falsafadiisa yaabka lahayd kadib markii uu ahaa mid ka mid ah kuwa ugu qanisan caalamka safarkiisii fakhrimo ee Mike waxa uu bilowday 90-meeyadii kadib markii uu ka baxay xabsiga oo 3 sano ku qaatay halkaasi waxa uu boqolaal jeegaga u qoray qaar ka mid ah waxyaabaha uu jecel yahay sidaasi daraadeed kaalay aanu barano dhacdooyinkaasi sababta u noqday inuu ku dayacay ku dhowaad $400 milyan gawaarida waxay ahaayeen kuwa uu aadka ugu waalaa waxa uu ku bixiyay in ka badan $400 milyan waxaa la sheegaa inuu lahaa 100 gaari intii uu noolaa darajo ahaan inuu la socon waayay gawaaridiisa sida ay u badnaayeen daraadeed qaarkood waxa uu amaahin jiray saaxiibadii kadibna waa uu hilmaami jiray qofka uu siiyey waxa ugu weynaa gawaaridiisa waa Bentley kaasoo uu iibsaday waqtigu hodanka intii uu booqanayay suuqa shirkadda kadib markii uu cajabiyay laakiin arrin kale yaab kale ayaa ahayd inuusan ku ekaan hal gaari balse waxa uu iibsaday 4 ka mid ah gawaaridaasi sabab ku aadan noloshiisii faqriga ahayd ee Mike lana joogay hooyadii markii uu gaaray halka ugu sareysa iyo caanimo waxa uu muuqaalkiisu ahaa waxa ugu weyn ee muhiimadda siin jiray waana waxa ka yeelay inuu 90-meeyadii uu bixiyo $100,000 bil kasta dharka iyo dahabka halka si bilaa uu bixin jiray $400,000 xitaa markii uu qarka u saarnaa inuu faliso isma bedelin caadooyinkiisa hore saan idinkugu sheegay Mike waxa uu caadaystay inuu bixiyo $400,000 bil kasta tusaale ahaan waxa uu ku bixin jiray waxa ka mid ahaa intii u dhaxaysay 96 ilaa 97 waxa uu bixiyay $9 milyan kaahan fiiga dhanka qaanuunka 230,000 telefono iyo $400,000 dabaaldega dhalashadiisa dabcan dhulalka waxay ahaayeen hantida Tyson ee mulkiye luntay Tyson waxa uu mulkiyay guryo fara badan meelo kala duwan oo dadweynaha Mareykanka sida Las Vegas, Maryland iyo Ohio dabcan guryaha waxay ahaayeen kuwa qurux badan oo gudaha lagu diyaariyay dahab Mike waxa uu iibsaday guri dhaca gobolka Connecticut oo ka kooban 22 qolal oo jiif ah musqulo iyo fadhi lagu daray farsamadiisa markaasoo ay kalifayso $300,000 Mareykanka Tyson waxa uu la mid ahaa xidigaha kale caalamka waxa dhinaciisa goobjoog ahaa tiro shakhsiyaad ah si ay ugu adeegaan iyo hubinta wax weyn naaqis ka yihiin dadka Mike u shaqeeya waxay gaarayeen in ka badan 200 oo shakhsi oo qaadanaya mushaaraad qaali ah lagu dayacay miskooda iyo kharashaadka ku baxaya telefoonada taasoo gaartay 2 sano kaliya $230,000 tusaale ahaan Steve ninka loogu yeero macaanka ku ah magaca Crocodile kaasoo Mike u magacaabay 1969 $300,000 shaqadiisu waxay ahayd inuu xirto dharka askarta munaasabadaha uu Mike xaadirayo iyo istaagida garabkiisa Mike waxa uu ku waalaa meelaha quruxda badan ee lagu dabaasho tusaale ahaan waqtigii uu lagu guda jiray guurkiisa gabadha jilaaga ee Robin Gates waxa uu hadiyay weel lagu qubeysto oo ka samaysan dahab kaasoo ku kacay $2.2 milyan ciidii dhalashadeeda suurtagal ma ahan inaad ka hadashid guurka Robin Gates adigoon xusin maalkii faraha badnaa ee ku bixiyay Mike waxay heshay furiinkeeda $10 milyan ima xaaskiisa labaad ee Monica waxay heshay $9 milyan kala tagooda mana istaagin mushkiladooda xitaa furiinka kadib sanadii 2003 waxay gaartay lacagaha canshuurta ah ee korkiisa $18 milyan wadata deyntiisana waxay gaartay $27 milyan laga yaabay dadka inay jecel yihiin xayawaanada inay korsadaan ama guriga keensadaan si ay isugu dhaafiyaan waqtiyada kelinimada laakiin Mike Tyson xaqiisa waxa balad u ahaa shabeelka Serbiyaanka ee dhifi naadirka isla markaasna xayawaanka ugu jecel yahay kuma ekaan hal bal waxa uu mulkiyay 2 shabeel midkii qiimihiisu waxa uu ahaa $20,000 lagu daray kumanaan kun oo bil kasta oo lagu muhiimad yeelayo halkii shabeel maalintii waxa uu cuni jiray 40 gabal oo hilib ah lagu daray guriga shabeelka iyo shaqaale u gaar ah oo qaadanaya mushaar sanadeed $125,000 inkastoo waxa soo dhan uu soo maray haddana malubin waxa ugu muhiimsan oo kaga soconaa kuwa kale taasoo ahayd kalsoonida naftiisa kadib khasaarihii maalka faraha badnaa iyo ku dhicistiisii deemaha malaayiinta $1 waxa uu la soo muuqday arrin ixtiraam leh waxa uu soo ragashay in lugihiisa dib ugu istaago laakiin maaha in sawiradiisa uu isticmaalayo dhinaca dacaayada sida feeryahankii George Fowler siifigiisa ayaa ka waramay sida ay munaasab u tahay inuu cilaajiyo ceebihiisa aragtidiisa dib u feerinta ayaa ka yeeshay mowqifka positive-ka ee maanta aanu ku arkayno waxa uu noqday nin xikmad leh in badan Mike markii uu 10 sano kor u dhaafay waxa uu bilaabay inuu dib u dhiso mustaqbalkiisa waxa uu ka qayb galay tobaneeyo filim oo guuleystay sidoo kale waxa uu sameeyay mashaariic kale oo xagga beeraha ah
si aad u hesho xogo iyo macluumaad badan oo ku xiiso galiya. Hadda booqo oo subscribe leh channelkeena Iliska Dunida oo ka mid noqo boqolaalka qof ee ku xiran channelkeena. nagulana soo biir caalamkan cusub oo aad ka faa'iidi doontid xogo iyo macluumaad ka yaabiya.